وأفتخر. ندى ألقا وفنانة عانكا ودمدا أفريكا هادي آدنا لوغا يقانو. ندى ألقا waxa ay kasoo jeedaa dalka Suudaan gaar ahaan magaalada Khartoum. run ahaantii waa fanaanad muslimad ah haddana asturan. ندى ألقا waxay dadka aad ugu jecel yihiin heesaheeda aadka u macaan. run ahaantii waa fanaanad ay dadka aad iyo aad u xiiseeyaan qaas ahaan dadka wadamada Afrika. ندى ألقا maanta waxaan halkan ku soo bandhigi doonaa taariikh nololeedkeeda iyo waliba taariikhdeeda dhanka fanka iyo inta fanka ay ku jirto iyo waliba in caruurteeda iyo macnaha taariikh nololeedkeeda guurka ee soo martay. ugu horreyn hadii aan ku bilaawno dhalashadeeda ندى ألقا waxa ay dhalatay 1 Febraayo 1975. ندى ألقا waxa ay fanka ku jirtaa 23 sano. waxa ay guursatay 2 jeer, labadii ninba way ka dhinteen. magaca oo dhameystiran oo ندى ألقا waa ندى محمد عثمان ألقا waana neesta fanka ay ku jirto ama fanka ay ku dooratay. haddii aan soo qaadano ninkeeda koowaad magaciisu waa Waalid Hijaasi oo ay guursatay asoo jira 17 sano waxaana ahaa qofka ugu horeeyay ee baray gabay ندى ألقا. waxay u dhashay wiil lagu magacaabo Waa'il. ninkeeda labaad waxaa lagu magacaabaa Axmed Alfaki oo dhintay 2009. waxayna u dhashay gabar lagu magacaabo Wuda. run ahaantii ندى ألقا sidaas waxay ku leedahay waa 2 ilmood gabar iyo wiil ah. ندى ألقا haddii aan ka hadalno taariikhdeeda heesaha waxa ay ku jirtaa 20 sano fanka 23 sano ay ku jirtaa fanka. heesaheeda internetka ay soo gelisay waa 240 heesood halka ay 200 oo heesood iyadu ay leedahay halka kuwa kale ay yihiin kuwa heesa dhaqameedka iyo heesa kale ay abwaane iyo u dhiibeen. heesaha ندى ألقا laxankooda iyo mirahooda iyo ay leedahay waxa ay gaarayaan 32 heesood. run ahaantii waxaan dhihi karnaa waa fanaanad karti iyo adkeysi intaba isku darsatay. ندى ألقا waa marna waa hooyo. ندى ألقا waa hooyo run ahaantii haddana fanaanad ah haddana asturan. run ahaantii waxaan dhihi karnaa anaga waa qof dhiiran waliba adkeysi badan ayaan dhihi karnaa. waa hooyo run ahaantii farxad badan karti iyo waliba adkeysina ay ka muuqato. ندى ألقا waa fanaanad jecel Afrika oo dhan inay soo wada marto. inkastoo la sheegay hadda ka hor in ay rabtay in ay Soomaaliya timaado laakiin taas wax la hubo ama wax cadeen loo haayo ma ahan. run ahaantii waa fanaanad muuqaalkeeda iyo waliba codkeeda macaan dadka ku soo jiidata. dadkana ay aad iyo aad u jecel yihiin codkeeda macaan. qurux iyo qaayan alla isugu daray maasha Allah. marka waxaan dhihi karnaa waa fanaanad inaba caadi ahayn dhihi karnaa. halkaas ayayna nooga eg tahay taariikh nololeedkii fanaanada caanka ah ee ندى ألقا aan uga hadlaynay. صومالي وأفتخر. أنا